Rwanda, dalka dhaqaalihiisu ahaa meel hoose haddana gaaray ilaa meel sare muddo kooban, dal dilaya dadkiisa, dad islaynaya. Rwanda waxay weyday muwaadiniin badan, dal ka soo kabtay gaajo, dalka mucjisada sida ay sheegaan wadamo badan oo Afrika ah, dal la daalaa dhacay dagaallo sokeeye oo hadda gaaray hawada. Rwanda, ama sida dad badan u yaqaanaan Jamhuuriyadda Rwanda, waa dowlad dhacda bariga Afrika. Bariga waxaa ka xiga Tansaaniya, waqooyiga Uganda, dowladda dimuqraadiga Kongo waxay ka xigtaa galbeedka, Burundi koonfurta. Waxaa intaas sii dheer in lagu tiriyo gobollada waaweyn ee Kongo. Rwanda waxaa ka yimaada webiga Niil. Gobollada Rwanda waxay u qaybsamaan ilaa 4 gobol. Waxaa intaas sii dheer caasimadda Kigali. Caasimadda Kigali waxaa laga helaa meelo badan oo muhiim ah kuwaasoo ku habboon dalxiiska iyo booqashooyinka. Waxaa laga helaa Kigali madxafka qasriga, halkaasoo ay ku jiraan dhammaan dukumentiyadii iyo taariikhihii dagaaladii sokeeye ee dalka Rwanda. Waxay kaloo leedahay khibrado badan oo dhaqameed. Waxaa intaas sii dheer in laga helo mandiqad dhaqaale. Waxay leedahay tiro warshado ah sida warshadda kabaha. Boteri waa magaalo weyn oo ku taalla gobolka koonfureed ee dalka Rwanda. Waa xarunta jaamacadda ummadda ee Rwanda. Sidoo kale waxaa ku yaala madxaf magaalada Boteri, waana meesha madxafka dhaqanka ka horey loogu aqoon jiray madxafka waddanka ee Rwanda, Wanjiri. Mid ka mid ah magaalooyinka ku fiican dalxiiska ee dalka Rwanda waa albaabka laga galo beerta Barkin. Barbaariddeedii iyo asaaskeedii, waddankaasi waxa uu soo jiitay indhaha caalamka oo ka dhashay xasuuqii kaasoo ku dhowaad 300,000 oo qof lagu dilay. Tan iyo xilligaasi dalku waxa uu bilaabay inuu soo kabsado. Sidaas darteed, Rwanda ayaa hadda loo tixgeliyaa inay tusaale u tahay dalalka soo koraya. CNN waxay daabacday warbixin ay ku muujisay sheekada guusha weyn ee Rwanda, kaasoo ku gaadhay xasillooni, koboc dhaqaale. Celceliska dakhliga ayaa 3 jibaarmay 10kii sano ee lasoo dhaafay, iyo isdhexgalka caalamiga ah. Dowladda Rwanda waxaa si weyn loogu tilmaamaa mid ka mid ah kuwa ugu waxqabadka iyo daacadnimada badan qaaradda Afrika. Maqaalkiisii ugu dambeeyay Forge waxa uu ku sifeeyey maxay maamulayaasha sare u jecel yihiin Rwanda. Caasimadda Kigali waa magaaladii ugu horeysay ee Afrika ee sharaf ku leh in la siiyo abaalmarinta qurxinta guriga ee abaalmarinta sharafta leh, iyadoo fiiro gaar ah u leh nadaafadda, amniga iyo dhowrista nidaamka magaalada ee tusaalaha ah. Sanadii 2008, Rwanda waxay taariikh ka samaysay sharci dejintii ugu horeysay ee lasoo doorto oo ay haweenku matalayaan aqlabiyad. Bishii Noofembar 2009, Rwanda waxay xubin ka noqotay ururka barwaaqo sooranka, maadaama ay ka mid tahay 2 dal oo ka tirsan barwaaqo sooranka oona horey u gumaysan Ingiriisku. Waxaa jira bulshooyin Carab ah oo Muslim ah. Hutu waxay matalaan 80% dadka reer Rwanda, halka Tutsigu ay yihiin 20%. Deganaanshaha shacabka iyo nabadda waa ku yar yihiin Burundi iyo Rwanda, gaar ahaan qarnigii la soo dhaafay, maadaama dhowr dagaallo oo qabiilo ay ka dhaceen, taasoo sababta tooska ay ahayd faragelinta Biljamka ee arrimaha dadka iyo sare u qaadista maqaamka kooxaha Tutsiga qaarkood. Faragelin la'aanta iyo aamusnaanta ayaa siyaasad ahaan iyo warbaahinta looga dabaqay xasuuqii, kaasoo la sheegay in lagu soo rogay ilaa 800 oo Tutsi ah qiyaasta UN, kadibna markaasuu taageeray Tutsiga kadib markii xukun ku soo noqdeen dhaqdhaqaaqii kacdoonka ee uu hogaaminayay madaxweynaha hadda jiray Kagame. Dagaalkii sokeeye ee Rwanda 1990 ilaa 1993, ama waxaa loogu yeero dagaalkii qabaliga ahaa ee u dhexeeyay Tutsiga iyo Hutuga, waxa uu ahaa isku dhac u dhexeeyay ciidamada qalabka sida ee Rwanda oo matalayay dowladda Rwanda iyo jabhadda Rwandan Patriotic Front (RPF). Dagaalkan oo socday 1990 ilaa 1994, waxa uu ka dhashay isku dhaca daba dheeraada ee u dhexeeyay kooxaha Hutu iyo Tutsi ee ka dhex jiray dadka reer Rwanda. 1999-1962 ayaa lagu bedelay boqortooyadii Tutsiga jamhuuriyad uu Hutu hogaaminayo, kaasoo ku qasbaday in ka badan 336,000 Tutsiga inay magan galaan dalalka dariska ah. Koox ka mid ah qaxootigan ku sugan dalka Uganda ayaa aasaasay jabhad mucaaradka ah ee Rwanda Patriotic Front, taasoo iyadoo ay hogaaminayaan Fred Rijim iyo Paul Kagame ay noqdeen ciidan dagaal diyaar u ah dhammaadkii 1980. Xasuuqii Rwanda waa xasuuq dhacay Abriil 1994, kaasoo waddanka yar ee Afrika ee Rwanda lagula kacay xasuuqii ugu badnaa taariikhda ee qarnigii 20aad. Waxaa fuliyay dhacdo siyaasadeed oo khatar ah oo salka ku haya dacaayadaha cunsuriyadda
ee kooxda aqlabiyadda ah ee Hutu waxayna xasuuqeen in ka badan 800,000 oo ka tirsan kooxaha Tutsiga ee laga tiro badan yahay muddo 100 maalmood ah iyagoo adeegsanaya baangado. Colaadan ayaa lagu magacaabayay salka ku haysa xifaaltan qabiil oo qarniyo soo jirtay oo u dhaxaysay labada kooxood oo xitaa ku guuleysan waayay inay heshiiyaan xilligii gumaystaha. Adduunku ma soo dhexgelin ama ma rabin inuu soo dhexgalo si xaaladda loo badbaadiyo. Inta badan dadkeedu waxay ka kooban yihiin Bantu ama waxa loogu yeero harooyinka Bantu. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah kooxda Hutu waxayna ka yihiin qiyaastii 80% dadka dalka ku nool waana asalka dadka degan Rwanda. Kooxda lamaadna waa Tutsi 10% ayay ka yihiin dalka Rwanda.